Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Funny Media. Magacaygu waa Abdiaziz Mohamed. Waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijkeeni maxaad ka ogtahay. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa 6 shay oo ay sameeyaan faqiiriinta laakiin aanu sameyn dadka taajiriinta. Waxaa jira waxyaabo qaar oo ay sameeyaan dadka saboolka ah balse aanu sameyn dadka hantilada. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah dadka faqiirka ah waxay daawadaan TV-yada balse dadka taajirka ah waxay akhriyaan buugaagta markay fursad yar ay helaan. Imise saacadood ayaad daawataa TV-ga? Sidoo kale goorma ayay oo aad akhrisay buugaagta ka hadlaya ganacsiga iyo horumarka bini'aadamka? Imise buugaag ayaad akhrisaa sanadkiiba ama bil kasta? Dadka faqiirka ah mushaar ay ku qaataan waqtiga inta ay shaqeeyaan laakiin dadka hantilada ah waxay lacag ku helaan waxay soo saaraan natiijadooda. Tusaale waxaad tahay nadiifiye company waxaadna tahay nadiifiyaha ugu wanaagsan caalamka ka soo qaad kaliya waxaad qaadanaysaa inta mushaar bilaha ama maalinlaha lagu qoray. Laakiin qofka taajirka ah haddii uu soo saaro shay keenana suuqa oo uu u gadmi waayo dadka kuma siinayaan lacag inta waqti dadaal uu ku bixiyay kaliya waxay wax ku siinayaan waxa isaga soo saaray tayadooda iyo muhiimadooda. Orodyahanada caalamka kuma helaan lacag inta waqti ay tababar soo sameynayeen laakiin waxay wax ku helaan sida wax ugu baasaan tartanka orodka iyo kaalinta ay kaga galaan. Dadka faqiirka ah waxay ku eedeeyaan calaf-daradooda dadka kale laakiin dadka taajirka ah iyaga ayaa qaata mas'uuliyadda khaladaadka ay sameeyaan. Dadka faqiirka ah waxay eeda ku saaraan waa dhaqaalaha waddanka, dowladda, waa magaaladeyda, waa shaqadeyda, saaxiibadeyda iyo kuwo kale laakiin dadka kale taajirka ah iyaga ayaa qaata mas'uuliyadda ficilada dhammaan ka dhalata natiijada. Dadka faqiirka ah waxay diiradda saaraan inta lacag keedka ay dhigtaan laakiin dadka taajirka ah waxay diiradda saaraan inta ay maalgashi ku sameeyaan. Dadka faqiirka ah waxay isku maleeyaan inay wax kasta garanayaan balse dadka taajirka ah waxay wadayaan waxbarashadooda wax kasta oo ku cusub. Dadka faqiirka had iyo jeer waxay ka hadlaan siyaasadda, ciyaaraha, wax ku saabsan bulshada, dowladda iyo wax kasta oo ku hareeraysan balse dadka hantilada ah waxay weydiiyaan su'aalo dadka kale waa ayna dhageystaan waa ayna sii wadayaan waxbarashadooda dhanka. Dadka faqiirka ah waxay aaminsan yihiin in lacagtu ay tahay waxyaabaha sababa ficilada xunxun dhammaan laakiin dadka taajirka ah waxay aaminsan yihiin in saboolnimadu ay tahay waxyaabaha sababa ficilada xunxun dhammaan. Lacag la'aanta ay tahay waxyaabaha keena shayada xunxun. Haddii aan fiirino xaafadaha dadka ay degan yihiin faqiiriinta waxaa ka dhaca ficilo xunxun sida isticmaalka daroogada, kufsiga, dhaca iyo waxyaabo kale oo dhibaato ah. Lacag la'aanta ayaana ah sababta waxyaabahaas oo badan. Lacag haddaad haysato waxaad u isticmaali kartaa waxyaabo xunxun ama fiican adiga ayay kugu xiran tahay. It is up to you. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkani waxaana filayaa inaad wax ka faa'iideen. Fadlan hanaga ilaawin subscribe, like, share iyo comment. Waxaana idiin soo jeedinayay Abdiaziz Mohamed waxaana gacan weyn ka geystay Abdiraxmaan Mohamed. Waa inoo mar kale oo xiiso leh.